السلام عليكم داوده maalinna ma maqashay oraahda caan baxday ee ah sabirkii nabi ayub ama xitaa iyada oo la isugu duceynayo samirkii ama sabirkii nabi ayub oo kale Allah ku siiyo maxaa laga wadaa oraahdaas ma ogtahay waxa ay ku saabsaneyd qisadii sabarka ee nabi ayub alayhi salaam waa qiso cajiib ah isla markaana mudan عبر قادشو iyo tusaale nolosha ku filan ah quraanka ay ku soo aroortay samirka iyo dulqaadka nabi ayub oo sanado badan ahaa ayadoo eebbe subhanahu wa ta'ala uu siiyay sifada samirka qisa kasta oo quraanka kariimka ah lagu wariyay waxa uu eebbe noogu sheegay in ay noo noqdaan tusaale wax ku ool u ah nolosheena si aan u hagaajino adduunkeena una shaqaysano aakhiradeenna nabi ayub nabadgeliyo korkiisa ha ahaatee waxa uu kamid yahay nabiyada loo waxyooday ee quraanka lagu sheegay qisadiisuna waxa ay noo tahay duruus aan wax badan ku baranayno nabi ayub nabadgelyo korkiisa Allah yeelay abtiriskiisu waa ayub bin isxaaq bin ibrahim nabadgelyo korkooda Allah yeelo ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين نبي أيوب عليه السلام وحو إلهي كما نايستي تضبا ويل إيا تضبا قبلود مال فرب بدن قعنت أيو كساري أصحاب بدن أيو لها ربي وحو دوني إنو أدون كيسا امتحانو دادك كدن بيانا أو تسالي أغن نخضو waxaa hal mar dhulka gashay badeecadiisii 3 maalin gudahoodna waxaa la kala aasay dhammaan caruurtiisa isagana waxaa lagu soo tuuray xanuun aan noociisa oo kale adduunka hore uga jirin ilaa uu guriga ku soo aruuray socodkiina uu gabay dadkii dhamaa waa ay ka kala yaaceen way dhibsadeen markuu ku ziyaaday xanuunka dadkii magaalada waxa ay isku waafaqeen in magaalada laga saaro si loo karantiilo si uusan cudurka haya dadka ugu daaranin oo uusan ugu faafin sidii ayaa la yeelay oo deegaankii waa laga saaray waxay iska degan meel deegaanka ka yara baxsan waxa ku soo hartay raxmo oo ahayd xaaskiisa way u khidmayn jirtay u adeegi jirtay oo marnaba aysan dhibsan jirin ilaa xaalku uu soo gaaray in ay dadka magaalada u shaqayso si wixii ay maalintaas soo hesho ay nabi ayub ku qoodiso calayhi salaam nabi ayub xanuunkaasi waxa uu hayay muddo 18 sano ah isaga oo ku sabrayay ku dulqaadanayay oo aan wax eeda ka sheeganin cidna waxba uma sheegan jirin korkiisa quruxda badnaa waxa hilib ka waayay tirxiga wax kale iska daayay kaliya carab iyo maqaar ayaa jirkiisii dhamaa ka soo haray xaalkii markii uu sii cagtirmay waxa ay xaaskiisu ku tiri haddaad alla bari lahayd si xanuunkan uu kaaga qaado way fiicnaan lahayd nabigu waxa uu ku yiri 80 sano ayaan barwaaqo ku jiray sidaas darteed waxaan ka xishoonayaa in ilaahay aan caafimaad weydiisto ayadoo aan gaarin inta barwaaqadeedu ay gaarsiisnayd ama muddadii aan barwaaqada ku jiray in la eg ayadoo xanuunkaygu uusan gaarsiisnayn maalmo kadib dadkii ay u shaqaynaysay ayaa ka cabsaday in gabadhan cudurka ninkeeda uu qabo ay iyaga u soo gudbiso dhammaan dadkii waa iska soo buriyeen raxmo wixii maalintaas ka dambeeyay waxa ay haysan jiraan gurigiina waxa ay kula noqoto malaha waxa ay go'aansatay in ay qayb kamid ah timaheeda jarto oo ay dib u iibiso sidii ay yeeshay oo timaheedii ay iibisay qarashkii ka soo galay ay cunto ugu iibisay nabi ayub calayhi salaam nabi ayub waxa uu weydiiyay halkeed ka keentay raashinkan sababtoo ah waxba kuma uusan ogeyn waxa la yiri maalintaas wixii ka horeeyay waa uu iska cuni jiray wixii ay u keento marna ma weydiin jirin halka ay ka keentay laakiin markii su'aashaas uu weydiiyay raxmo uma aysan jawaabin maalintii xigtay haddana waxa ay biicisay qaybtii kale ee timaheedii ka harsanayd kolkii ay guriga timid madaxeedii waxa daboolka ka qaaday nabi ayub calayhi salaam uu ka naxay aad ayuuna u tiiraanyooday mar haddii xaalku halkaasi gaaray weli waxa uu ka xishoonayaa in uu Allah caafimaad weydiisto laakiin xaaskiisii waxa ay ku qasabtay in uu eebba baryo sidii ayuu yeelay أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين waa laga ajiibay waxaana lagu yiri kani waa biyo ee uu isticmaal cabid
iyo qubaysba, lugahaagana dhulka ku dhufo. biyihii ayuu ku qubaystay wuuna cabay. wuxuu ku soo baxay sidii qof aan weligiis xanuunsan oo kale. xaaskiis oo markaas ka maqnayd meesha ayaa dib ugu soo noqotay goobtii. way aqoonsan weyday kani inuu nebi ayuub yahay quruxda ka muuqata darteed. waxay ku tiri aaway ninkii jiranaa ama xanuunsanaa ee halkan yaallay. isla isaga ayay weydiinaysaa, ilaahay baan ku dhaartaye aad buu kuugu ekaa markuu caafimaadka qabay. wuxuu yidhi, hadda ima garanaysid miyaa? waxaan ahay saygaaga ayuub. ibnu cabbaas waxa uu yidhi, caafimaad keliya lama siin, xitaa waxaa la siiyey owlaad iyo maal ka badan intii hore uga baaba'day. xaaskiina timo kuwii hore ka qurxoon oo ka dhaadheer ayuu allah u hibeeyey. haweenaydii iyadana waxa uu allah ku soo celiyey dhallinyaranimadeeda, oo waxa ay sidaasi ku dhashay 26 carruur ah oo aan mid dhicis ahi ku jirin. eebbe ciddii uu doono waxa uu doono ayuu siiyaa, wuxuu doonana waa uu ka qaadaa. eebbe isaga ayaa ah kan awooda wax kasta. qisada nebi ayuub calayhi salaam waxa ayna siinaysaa cashar nolosha ku saabsan. waxayna tusinaysaa in sabarka iyo dulqaadka uu yahay waxa ugu muhiimsan ee nolosha. nebi ayuub waxa uuna tusiyey in mar kasta uu eebbo ku xirnaa intii uu ku jiray barwaaqada, nabadgelyada, caafimaadka iyo quruxda. iyo markii dambe ee la imtixaanay ee dhibaatada, xanuunka, saboolnimada iyo culayska lala soo dirsayba, marnaba iimaankiisii waxba iskama beddelin labada marxaladoodba. intaas ayaan ku soo gunaanadaynaa warbixintan oo aynu ku soo qaadannay qisada cibro qaadashada mudan ee nebi ayuub, nabadgelyo korkiisa allaha yeele. warbixinno kale oo wax u nagu soo kordhin doona ayaanu soo diyaarin doonaa insha allah. waxaanu kaa codsanaynaa in aad warbixintan like saartid adiga oo mahadsan. inta ka horraysa sidaas iyo nabadgelyo.